xayawaanaadka jannada galaya qaybtii saddexaad waxaan muuqaalkan ku soo qaadan doonaa taariikhda laba xayawaan oo aad u xiiso badan. mubaarak khayraad falowdhe muuqaalkan sii share garay lofta iyo commentigana nagu dhiirigeli mahadsanid. makhluuqa saddexaad waa quraanyadii nabi Suleymaan calayhi salaam. quraanyadan oo la socotay qoomkeeda oo quraanyo kala ah waxaa xilligaas u soo dhawaaday nabi Suleymaan calayhi salaam oo wata ciidankiisa. quraanyada ayaa ka cabsatay inay Suleymaan iyo ciidankiisu burburiyaan. waxay ugu yeertay qoomkeeda inay galaan guryahooda si aysan u burburin Suleymaan iyo ciidankiisa ayagoon ku baraarugsanayn oo ogeyn. markii uu maqlay hadalkeeda nabi Suleymaan calayhi salaam wuu dhoola cadeyn qosol ah. maxaa yeelay Ilaahay wuxuu baray hadalka xayawaanaadka sida shimbiraha iyo quraanyada iyo kuwa kale. Ilaahay ayaa ku qoray kitaabkiisa xigmad uu nabaraya darteed. naxariistiisa darteed Ilaahay wuu badbaadiyay quraanyadii wuxuuna ku sheegay hadalkeeda kitaabka Qur'aanka. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون.